wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Nairobi ayaa qoray in ciidamada wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan lagu soo jibiyay dagaalkii ay maanta xuduuda Mandera iyo Beled Xaabo ay kula galeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. Wargeyska ayaa sheegay in ciidamada Jubaland oo ay u soo awood sheegteen kuwa dawladda Soomaaliya ay gabaad ka soo dhigteen oo hadda lagu hayo saldhigga booliska Mandera. Waxaa saldhigga dusha ka ilaalinaya ciidamada militariga dalka Kenya, sida warbaahinta Daily Nation lagu sheegay. Dagaalka oo intiisa badan ka dhacay dhanka xuduuda ee Beled Xaabo ayaa waqti badan qaadan kadib markii ciidamada Jubaland u soo carareen dhanka Mandera. Sida warbaahinta ay sheegtay, wargeyska ayaa sheegay in askarta saldhigga la keenay oo ay galbinayeen militariga dalka Kenya ay gaarayaan ilaa 30 askari oo ay wehelinayaan saraakiil sarsare. Wuxuuna soo bandhigay sawir muujinaya ilaa iyo hadda macada halka uu ku dambeeyo wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan iyo haddii uu weli degan yahay aaga xuduuda ee lagu dagaalamay saaka ee border point 1 oo markii hore uu guri halkaasi ka kiraystay. Hase yeeshee qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee amniga Mandera ayaa gabaad u raadsaday xero military oo ciidanka Kenya ay ku leeyihiin xuduuda. Dhinaca kale, qaar ka mid ah dadka deegaanka Beled Xaabo ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen dagaalkii maanta halkaasi ka dhacay.